xabsiga daraamadii ka dhashay maamul kasta oo joogayba saxaafadda Somaliland waxay ahayd saxaafad madax bannaan xukuumadda Somalilandna ay ula dhaqmaysay sida maxaanku dhahdaayay looga dhaqmo caalamka dimuqraadiga ah ee adduunyada ka jira. dowladda maanta jirta saxaafadda Somaliland siyaasadda ay aaminsan tahay, siyaasadday kula soo dhaqantay, siyaasadday mustaqbalka kula dhaqmayso waxa weeye mid ay aqoonsan tahay inay tahay saxaafad madax bannaan oo xorriyad u haysata dareemadooda siyaasiga ah inay maxaanku dhahdaayay ay si madax bannaan ay u jeediyaan. keliya waxaynu iminka daba soconnaa ama arrintaynu ka hadlaynaa waxa weeye arrintii ka dhacday jeelka, warkii ka dhacay, saxaafaddu siday warkii u sii daysay, xaqiiqada ma yahay mid abuuraya xaalado kale oo xagga nabadgelyada dhibaato ku keeni kara. taa waxaan u daynaynaa sida aynu ognahay nidaam dowladeed baynu leenahay. nidaamka dowladeed aynu leenahay isagaa inoo xadeeya xilli kasta, goob kasta, arrin kasta oo dhacda sifaha loo maro, sharciga loo maro iyo qaabka loogu dhaqmayo hay-adaha sharci dejinta. iyada oo ay jirto madax bannaanidaasi dowladduna aaminsan tahay, mustaqbalkana ay aaminsan tahay. arrintaa waxaan doonaynaa waxaa ka socdaa iminka waxa weeye hay-adaha sharci dejinta ee dalka, hay-adaha nabadgelyada ee dalka sida biliiska, maxkamadaha, xeer ilaalinta waxay arrintaa ka wadaan oo gaar ahaan cidda gacanta ku hayso biliiska ugu horreeyay xeer ilaalintu waxaa dhacay maxaa sharciya iyo maxaan sharci ahayn. labadayda wasiir hadda iminka arrintan aan ka hadlayno waxaa noo keenay inaanu labadayda wasiir ka hadalnaa waxa weeye arrinta saxaafadda iyo xarigooda. labada wasaaradooda ku shaqo labaanu nahayoo wasaaradda waa wasaaradda warfaafinta oo waa line minister iyada oo ah saxaafadda. wasaaradda daakhliguna marka tallaabo laga qaado waa wasaaradda loo aneynayo inay hoos yimaadaan ama ay xukunto ciidamada nabadgelyada ee tallaabada ka qaaday. halkan waxaan doonaynaa inaan ka caddeyno marka ugu horreysa suxufiyiinta xidhan oo aan annakuba ka xunnahay in mar qura la yidhaahdo tarayntaa leeg baa ka xidhan, inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin, inaan cidna sharci si khaldan loogu qaaday aan lagu abaabulaynin. waxaan doonaynaa markaa arrintaas sida sharciga Somaliland uu yahay baynu maamulaynaa, si latifan baa loo maamulayaa, si aan loogu talax teginoo maxaanku dhahdaye dhib loo abuurin baynu loo maamulayaa. dowladda Somaliland saxaafadda weligeed yaalaheed marna gacan muroojin kumay samaynin, marna dhibaato kumay samaynin. waxaynu doonaynaa markaa uma jawaabaya hadda, waxna ka tari maayaan. dad isleh saxaafadda kalsooni kaga samaysta oo u dhigaya in ay dowladdu khalad gashay waktigeeda ayaanu ka hadlaynaayo waxaan isleenahay taasi iminka marxaladeedii lama joogo. laakiin arrinkan iminka ku koobannahay waxa weeye arrintaasi dariiqyada sharciga ee inoo yaalaynu maraynaa. ajanabiga dowlado fara badan oo dowladaha reer yurub baana soo weydiiyey, qaar waan uga jawaabnay, qaarna waanu uga jawaabaynaa. waxa weeye iyagana waxaan jecelahay inaan maxaanku dhahdaye aan la politicize garaynin oo sharciga Somaliland loo gafin. dowladda Somalilandna waxay iska ilaalinaysaa nidaamka dimuqraadiyadda ee taasi iminka marxaladeedii lama joogo. laakiin arrinkan iminka ku koobannahay waxa weeye arrintaasi dariiqyada sharciga ee inoo yaalaynu maraynaa. ajanabiga dowlado fara badan oo dowladaha reer yurub baana soo weydiiyey, qaar waan uga jawaabnay, qaarna waanu uga jawaabaynaa.
waxa weeye iyagana waxaan jecel lahay inaan maxaanku dhahdaye aan la politicize garaynin oo sharciga somaliland loo gafin dowladda somalilandna waxay iska ilaalinaysaa nidaamka dimuqraadiyadda ee tobaneeyada doorasho ee geeskan afrika aanu ku naalla ka dhici kari la aanu ku soo marnay oo dowladda maanta xilka haysa iyo xisbigeedu muddadii ugu badnayd iminka ay hayeen mar walba ay ku sifoobaan dimuqraadiyadda maxaanku dhahdaye ugu tayada rool leh inaanay marna maxaanku dhahdaye dibna uga soo noqonaynin dhibaatana aanay ka noqonaynin aanaan garan waayi doonin haddana aanu ku sugannahay inaanu si fiican ula soconno inaanu kayska saxafiyiintayada si dimuqraatiga oo nidaamka sharciga iyaga waafaqsan oo waayeelnimo iyo dulqaadasha ay ku siban tahay inaanu u maamulo waana mahadsantii